السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسنا خيارتا شرفتا بدني هودا نقدا وتاي kuna soo dhawaada barnaamijkeena codka dhalinyarada oo ah barnaamij toddobaadle oo toddobaad kastaba hal mar aad ka daawataan telefishinkan caalamiga ah ee Somalisat. barnaamijkeena codka dhalinyarada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka ay qabyaaladu u geysatay bulshada Soomaaliyeed. waxaana barnaamijka marti inoogu ah gudoomiyaha ururka u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada Soomaalida ee loo soo gaabiyo magaciisa ATM waa Aadan Cabdullaahi Mataan oo isagu ah shakhsi dhalinyaro ah oo firfircoon isla markaasina isu xilqaamay inuu ka suuliyo Soomaalida qabyaalada oo kamid ah xanuunada xunxun ee muddooyinkan dambe la soo darsay ee ay qaranimada Soomaaliya ilaa iyo haatan la hagaagi laadahay. Aadan marka hore ku soo dhawow barnaamijka codka dhalinyarada iyo TV-gan Somalisat. aad iyo aad ma santay saaxiib Cabdiraxmaan iyo aadna ugu mahadcelinaa in fursadan qaaliga ma siiseen waa tahay waxaan isku daynaa bal mataan inaynu marka hore dadweynahayna daawanaya fahansiino waa maxay ATM maxaase loo aasaasay muxuu qabtaa ururka ATM ATM horta waxay u taagan tahay anti-tribalism movement haddii af Soomaali loo rogana waxa weeye dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaalada oo ay ujeedadiisu tahay sidoo ummadda Soomaaliyeed uga saari lahaa qabyaalada qalbigooda iyo maskaxdooda degtay qabyaaladaas oo dhinac ka saga gashay xagga haato bulshada xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha inta ka gashay muddooyinka wadankeenu ay ka jirtay nabad darradu ka jirtay ama dawladlaantu ka jirtay qabyaaladaas oo u kala baxda cunsurinimadii u kala baxda siyaasadii oo 4.5 hadda la dhaho u kala baxda shaqaaleyntii markay timaado qof Soomaaliya oo la shaqaaleysiinayo oo shaqadii loogu diiday reerku yahay markay timaado deegaanka oo tahay dadka Soomaaliyeed qaarkood in deegaankooda aysan deganeyn sababtoo qabyaalad inoo dad badan ay wadankii maanta ka maqan yihiin wadankeena saa burbursan yahay sababtoo qabyaalad marka waxaan isku daynaa bal qabyaalada ummadda Soomaaliyeed burbursan muddo aad iyo aad ka dheer inaan wax ka qabanno hoosna u dhigno ciribna tirno hadii ay beedmo sanadaha soo socda waa tahay mataan waxay la tahay Soomaalidu inay haatan aad isugu khaldaan qabiilka iyo qabyaalada oo ah laba shay oo kala durugsan ama baan isu dhaweyn ururkan ATM maxaa idinku dhaliyay ama kacdoonkan la dagaalanka qabyaalada maxaa idinku dhaliyay in la aasaaso xilli ma bilowdeen asaaskiisa xilli waxaanu aasaasnay 2010kii waxaana nagu dhaliyay inaanu asaasno markaanu aragnay ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ku haysto xitaa qurbaha oo la joogo aad iyo aad bay qabyaaladu Soomaaliyeed dhibaato u haysaa iyo wadanka gudihiisa qabyaaladuna waxa ummadda Soomaaliyeed maanta ay la kiciraadahay waa waxa jijibiyay qarankeeni waa waxa jijibiyay dadnimadeeni waa waxa diinteeni hadda meel xun si marsiinay waa waxa dadnimadeeni burburiyay oo halkaan gaarsiiyay maanta marka goortaan bilownay waxaanu aragnay dhibaatada qabyaalada ummadda Soomaaliyeed ku hayso anagoo Ingiriiska degan oo degan wadamada aan horumaray baan haddana aragnay Soomaaliya gudaheeda degan oo qabyaalada isku dilaysa oo maalin kasta lacag ururinaysa sidii reer kale oo weerari lahaa ama reer kale oo isaga dhicin lahaa ama dad kale deegaankooda loo qabsan lahaa waxa aad iyo looga naxo meeshii wadankeena dhisan lahayn dadkii isku soo celin lahayn aynu ka shaqeyn lahayn si la isu cafin lahaa dadka badanka Soomaaliyeed waxay nagu dhahaan qabiilka qabyaalada وحيا فرق أقول حياة ضنا ويسكو قصان ويسكو خلطان runtii فرق weyn baa u dhaxeeya qabyaaladu waa cudurka ama waxa weeye sida xun ee loo isticmaalo qabiilka dhamaanteen waxaanu ka wada dhalanay reero adigu reer baad ka dhalatay anigu reer baan ka dhashay dhamaanteena waxaynu ilaahay baan naga dhaliyay cid naga bedeli kartana ma jirto ogowna inagu ma inaan dooran reerkeenu ka dhalanay markaynu 10 jir ahayn baa la noo sheegay waxaa tiin reer hebel laakiin waynu ka dhalin karnay reeraha ay Soomaalidu tiraahdo ama yeesto ama ay tiraahdo waa dadka laga tirada badan yahay ama xuquuqdoodii la duudsiyo muddo aad iyo aad u dheer markaas haddii dadkaas aynu cunsuriyeyno waxaynu rabnaa inaynu ogaano ama waxa laga maarmaan inaynu ogaano waxaynu ka soo horjeednaa jiritaanka bini aadanimo oo Ilaahay abuuray
sababta inagu ma noobano marka qabyaaladu waa taas oo siyaasadii gashay oo isdilkii gashay oo cunsurinimadii gashay oo xitaa la isku guursan oo deegaankii la isla degin laakiin qabiilkuna waxa weeyaan kan ka soo dhalay marka farq weyn baa u dhaxeeya qabiilku wax dhibaato ma laha laakiin sida khaldan ee loo isticmaalo ee diinteednimada ka soo horjeeda ayaa khalad kale matan waxaad ka dhawaajisay kolleyto Soomaalidu sida ay qabyaalada u isticmaasho qurbaha haday tahay iyo gudaha haday tahayba waa maxay hadafka ururka ATM ma inuu u doodo dadka laga tirada badan yahay ama Soomaalidu ay ku tilmaamto minority-ga mise waxa weeye sidii uu tirtiri lahaa qabyaalada Soomaalida oo haatan heer xun gaarsiisay Soomaalida waa maxay hadafka ama ba ujeedada ururkan aad u aasaasteen horta qabyaaladu ma aysan saameyn dadka laga tirada badan yahay kaliya ama Soomaalida waa laga tirada badan yahay reer kasta maanta waa dhibane oo Soomaaliyeed marka qabyaaladu waxay gashay waad aragtay waxaad arkaysaa nin baa reer laga dilaya oo reer kale ka dilaya lama doonanayo gacan ku dhigli waan la yaqaan meeshu joogo waan la arkaa maalin kasta dariiq ku arkaan isagoo maray waa gacan ku dhigli reer ka dilay ma dilayaan laakiin waxay doonanayaan qofka reerka ka dhaqaaqaya waxaad yaa looga naxruntii oo maskaxdii iyo fakarkii haboonaa baa laga dilayaa ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedba waana qabyaalad waana taa qabiilada waaweyn xitaa ama kuwa dhaawaan waaweyn laandheeraha isku sheega iyadana dhibaato way gaarsiisay oo geyigooda qaar baan deganeen hadda maanta sababtoo ah dagaalada sokeeye iyo dhibaatada dhacday marka qabyaalad waxay tahay ujeedadan kacdoonka la dagaalanka qabyaalada inaan hoos u dhigno qabyaalada Soomaali dishay noocay doontaba ha ahaatee marka insha Allah aanu meeshana ka saaran qof badan dadku waxay nagu dhahan see looga saari karaa ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah dhiigii waxay ka gashay iyo dhuuxa iyo dhiicaanka inta way ka dhex gashay see looga saari karaa waxa looga saari karaa qabiilkaaga iyo diinta Soomaaliya iyo diinta Ilaahay teeba ku hortimaada teeba ku ah koowaad ma diintaad ku aaminsan tahay mise qabiilka haddaad qof muslim tahay oo Ilaahay ka baqaya oo salaada aad maalin kasta shanta cishaan maalin kasta tukano ay daacad ka tahay oo qalbadaada ka soo goday oo diintan si muuminimo aad u aaminsan tahay qof ma ta koorteen kamana aad soo horjeesateen abuurta Ilaahay sababtoo waa abuurta Ilaahay baana saa ka dhigay waado maanta dhaha qofkan muxuu indhala yahay ama u dhagala yahay ama u faruuran yahay ama sankiisu dilaacsan yahay taas awgeed qofkan ma aqbalayno nagana mid aha waana leen la tokoora waado saasoo kala dhahay sababtoo Ilaahay baa qofkan saa ka reerku yahay ka dhaliyay ama wuxuu yahay ka dhigay inaad ku cunsuriyaysid ama aad ku jirdishid ama aad ku xumaysid ama aad xuquuqdiisa ugu diidid waxaad inoo kala dardaartay nabigeena calayhi salaam baa inoo sheegay waa qabyaalada ka dheeraada dado diinta leena ku sheegay in Ilaahayna ka sameeyay shucuubiyo iyo qabaa'ilooyin leena ka sameeyay oo ujeedada inuu ka sameeyana ay kaliya ahayd inaanu isku ogaano ee maysan ahayn inaanu isku foqo isku gaarsiino isku dilno angayigana iska baxsan oo wax ummadda Soomaaliyeed hoos u dhigay siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed intuba iyo dhalinyaraduba intuba kama hadlaan xitaa culimada badankoodu sidii laga sugayo kama hadlaan qabyaalada ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayso dhamaantood ama qaar badankoodu waxaysan uga hadlin sababtoo ah iyaga wax ku qaba qabyaalada ama iyagay ka dhaadhacsaneen qabyaaladu dhibaatada ay leedahay marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inuu ogaano dhamaanteen inuu ogaano waxa ina burburiyo oo wadankeena maanta halka dhigay waa qabyaalad ma aha wax kale waa tahay matan waxaad ka dhawaajisay in qabyaaladu ay dhibaato badan ku hayso qabiilada sheegtay inay iyagu tiro badan yihiin ama ay tun weyn yihiin maxaad nooga tilmaami kartaa maalin kasta dadka la faquuqo ama lagu tilmaamo 0.5ka dhibaatooyinka ay la kulmaan ee qabyaalada Soomaalidu ay geeysiiso bal aynu isku dayno inaynu ka fakarno hadda ama aynu iska dhigno anigu bal hadda intaan meesha fadhiday intana daawanayso bal aynu iska dhigno inaynu nahay reeraha laga tirada badan yahay ama dadka laga tirada badan yahay aynu iska dhigno 3 daqiiqo waqtigeena kamid ah aynu iska soo qaadno reerkaynu nahay ama meeshaynu ku reerahaynu nahay oo reer Tuuynana laandheeraan nahay in ma libaxsan ka taabtaan nahay aynu iska soo qaadno bal aynu iskeeno meesha ka soo horjeedo aan ahayn masaakiinta laga tirada badan yahay anagu ma aaminsan dadkaas ducuf yihiin la gaabna yihiin laga roonanayaan la yihiin ee wadada Soomaaliya haddaad iska dhigtid waa dariiq martid waa qof Soomaali markuu horimaada tiraadid oo ku dhaw qolamaad ahayd ama reerkeed tahay ma xagee ka soo jeeda waa tiraad waxaan ahay reer qansax oo reer qansax oo loo yaqaan inay yihiin dad aad u liita ama Soomaalida dhexdeeda dad saa uga liita looga yaqaanay bal qofkaas sida uu kula dhaqmaaray بالله من كودا ريسو كولا رقم قفك بني آدم كهيارك كولا ما رقمايو سيد قف بني آدم
oo Soomaaliya oo muslim oo walaalkiya oo dad iyo diin iyo dalba ka dhaxeeyo wuxuu kula dhaqmayaa sidoo qof bini aadan ah oo adigu sida Ilaahay ku dhameystiray uusan qofkaas u dhameystirin waa dhibaatada waa mental blow dadkaas ku dhacay iyo dhibaatada haysato oo maskaxdooda laga dhaadhiciyay markaas waliba dadkii Soomaaliyeed si loo faquuqay ayaa hadda iyaga intay aqbaleen ayaa waxay aqbaleen in dad kale ka liitaan ama dadka kale aysan ahayn sida ay yihiin iyagu aysan ahayn sababtaas si maalin kasta dhagahooda loogu sheegay ayaa dhibaato loo geysay waad aragtay hadda magaalooyinka Soomaaliyeed waad aragtay qabiilo waaweyn ama ku yar bahaatay waad aragtay dhibaatada ka taagan magaalooyinka waaweyn Soomaaliya sida Gaalkacyo oo maalin kasta la isu dilo reero sababta waxaad baaskaraysaan waxaad soo dhaaftay xuduudii reer hebel ama line reer hebel baad soo dhaaftay marka xabad baa kula tagaysa waa wax aad iyo aad looga naxay iyaga dad isugu xiga iyaga isugu dhow iyaga tola iyaga iska guursada haddana inay saas dad isula dhaqmaan wax laga liito waad aragtay Hargeysa waxaa kasta meel dhaho daami oo dhibaatada ummadda Soomaaliya lagu hayo Muqdisho hadda joogay oo ka soo tagayeen bariga ugu dambeeyaan joog waad aragtay dhibaatada lagu hayo dadka Soomaaliyeed haddana waxa laga yaabaa inuu konton jeer ka aqoon badan yahay xirfad badan yahay karti badan yahay ka maskax badan yahay kana soo dhaweysanaysa reerkaaga ka dhiganaysa waxaad yaa looga naxo waxaad yaa looga wasuuso wax diin wax muslimnimada iyo bini'aadanimada labadaba ka dheer waa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed qabyaalad waana tamaanteen soo sidee waad aragtaa indhahaaga ku macalina xamar waad aragtaa maanta ma aysan burburin wax kale cir kale kama soo weerarin loo inoo malayn sababta waa muslim waa Soomaali waa dad Afrikaano inda adag oo dhib badan xidnayna malayn Mareykanna ma burburin wadankeena ma burburin xamar waxa inta magaalooyinka Afrika ugu cadcad ugu quruxda badan xitaa adduunka la tartami jirnay adduunka weyn maanta Emirates baynu noqon lahayn sidoo kale iyo Dubai laakiinse waxa burburiyay maanta dhamaantii wada ognahay qof Soomaaliyeed kama qarsoona laakiin waa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed inay gaarsiiso qabyaalad laakiin Soomaali mar maanta inay ka hadasho una diyaar garoodo inay iscafido runtana ka sheegto diinteena u noqoto taasna waxaan rabnaa ku boorin waa tahay matan waxaad sheegtay in ururkan ATM la aasaasay 2010 ilaa hadda muddada uu ururku jiray maxaa uu qabsoomay qaab noocee baad ugu talaabsateen baad dhihi kartaa hawlihii aad isu taagteen maxaa idinka hirgalay la dagaalanka qabyaaladda والله waxyaalaha ugu waaweyn oo maanta ku sheeg ku dhig karo way noo hirgaleen waanuna gaadhnay ujeedooyinka waxay inaanu bedelno qof bini aadan iyo qof Soomaaliya sida ay u fakaraan oo ay uga fakaraan dad kale ama sida ay dad kale u arkaan taasoo ha noqoto inaanu uga fakar inaanu diinta ku noqonaan dhan wardiinteena balsana qabtay balaaneegno xitaa diinta wax ku fahmi waayaan aanu bini aadanimo ku fahmisanoo dhan midaan arkeen adduunku waxa loo degan yahay cadaan iyo madow iyo kuwa kaakiya iyo kuwa orange iyo kuwa indha yaryar iyo kuwa indha waaweyn iyo kuwa indha buluug intaas loo wada degan yahay adiga oo Soomaaliya oo labadeena hadda maanta halkaan soo taagno oo laga yaabay inuu ka soo midna ka soo jeedo reeraha isku sheega laandheeraha midna ka soo jeedo reeraha laangaabka qof kale oo Soomaaliya ma kala saari karo ilaa aynu afkeena ka hadalno uma dhigi karo alle kana waa reer hebel kana waa reer hebel waxyaalaha naga naxo waxyaalaha ummadda Soomaaliya ku boorino xitaa dad badan maskaxdooda bedelay dhan alle waa sax waa runta maxay naga isku keen dareer dhibaatada dhex dhigay marka waxyaalahan ugu badnayn gaarsiin waxa weeye inaan hadda leenahay xubno gaadhay 84,000 oo xubnood oo dhamaantood taageera kacdoonka la dagaalanka qabyaaladda bedelina maskaxdoodii iyo say qabyaaladda u arki jireen iyo sidoo kale dhaqmi jireen waxaanu haynaa dad ayagoo oo tagi rabay oo noqon rabay dhulkii Soomaaliyeed noqon rabay Soomaaliya noqon rabay oo ka iimaanay waliba Ingiriiska ka iimaanay oo rabay inay noqdaan oo rabay inay soo dagaalamaan sababtoo reerkoodii baa reer kale wax gaarsiiyay aanu la baljoojiyay ma ogtiin horta xaqiiqada baan ku hadalno reerkiina waxba la gaarsiiyay laakiin adigu magacan ku dhigli ma soo helaysaa ma soo helay laakiin wixii reerka ka soo jeedo dhamaadilaya bal waay markaas diintii ma ka baxday qof muslim ma tahay ma kana ka fikirtay cadaabtaada iyo aakhiradaada ma ka fikirtay ma ka fikirin laakiin anaga nala dhahayaa gun weeye oo waana la gumaystay oo saasaana loo galay runtii wax laga naxo waa inaad ka fikirtid inaad aakhiradaada iyo adduunkaaga aad u fikirtid baa loo baahan yahay oo dadka Soomaaliyeed xitaa marka isku dhacaan inaad nabadii dhexdhexaadisid oo horumarkii ka shaqaysid ayaa qof kasta oo Soomaali laga rabay laakiin dabkii oo hurayay وهذا نقصي شو يعني غاز يعني اللي كمان فيليني يعني وحيلها كلام نقارن waxa kamid ah adduunka wadan adduunka magaalooyin badan oo kamid ah iyo wadamo badan oo kamid ah aan wacyigelinta ka soo qabanay oo waxyaalo badan ka soo qabanay waxa kamid ah inaan ka qayb qaadanay abaarihii ka dhacay wadankeena hooyo oo berigi dhawid ku dhacay sanadkii la soo dhaafay
waxaa ka mid ah inaanu hadda la shaqaynano dowladdan cusub hadda lasoo dhisay waanu kula shaqaynana si loo soo saari lahaa sharciyo iyo policies ku aadan qabyaaladda iyo cunsurinimada ummadda Soomaaliya dhexe taala oo noqon doonta wax aan xaq ahayn qof Soomaaliya ku dhaqmo ama qof Soomaaliya xuquuqdiisa loogu diido sababta reer ku soo jeedo insha Allah waan ognahay dowladdu inay ku dhisan tahay wixii la dhihi jiray 4.5 ba haddii abeed ma ka bixi doonaa waana gaari doonaa goor ay noqon doonto Soomaaliya ay qof ku soo dooran doonto muxuu qaban karaa wadanka muxuu halkuusina gaarsiin karaa ay laakiin aysan ku soo dooran doonin waa reer hebel waan isku dhownahay hadduu isagu meesha helo annaga reerkayga xoogaa sharaf aanu helinahay sumcadeeda kor u kacaysa ay laakiin laga fakari doono inaan laga fakari doonin reerka waxa marka koowaad laga fakari doono danta qaranka haddii abeed waa tahay markan waxaad sheegtay in xubno ka badan 84,000 oo xubnood ay haatan ATM ka tirsan yihiin qaab nooceeya baa ururkan ATM loo beeri maxayse shuruudaha looga baahan yahay qofka doonaya inuu xubin ka noqdo kacdoonkan la dagaalanka qabyaaladda haddii qofka Soomaaliga uu rabo inuu xubin naga noqdo waxa weeye koow inuu aqbalo dhibaatada qabyaaladda ummadda Soomaaliyeed ku haysay inuu aqbalo inuu ka waantoomi doono qabyaaladda iyo ku dhaqankeeda saddex inuu buuxiyo formska oo ama ka buuxo ama xarumaha iyaga London iyo Muqdisho iyo Nairobi iyo magaalooyin kale degan joognaba noogu yimaado ama ha ka buuxiyo internetka oo insha Allah ku qormi doona hoos video ku soo qormi doona marka uu dhamaanayo programkan hadii ay beedmo intaas markuu ka qaato qofka Soomaaliga wuxuu noqon doonaa xubin wax lacag lagama rabo waxa kaliya inuu qofka Soomaaliga karno waxa weeye nagu soo kordhay aqligaaga kaana nagala qayb qaado isbedelkan runaan bedelno sida khaldan ee dadkeenu fikiro kaalayo xoogaagana nasi oo nala volunteer garay ama mutadawacnimo noogu imo nacaaw hadaada uu didway inta kaliya qofka Soomaaliga ka rabno weey marka insha Allah waxaan rajaynaynaa caaw ku badan oo programka daawan doona inay nagu soo beeri doonaan ayna nagala qayb qaadan doonaan isbedelkan la dagaalanka qabyaaladda hadii ay beedmo mataan dhawaan waxaa tagtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo xilli hore ama waqti dheer dagaal ay ka socdeen isbedel nooceeya baa kaaga muuqday magaalada Muqdisho waa maxay fikirka aad ka aaminsanayd markii hore aad tagaysay Muqdisho horta Muqdisho markii ugu horeysay weligeey nolosheeda waxaan tagay sanadkii la soo dhaafay markii abaarihi ay ku dhufteen wadankeena Muqdisho markaas waxa haystay dhalinyaradii al-shabaab baa haystay dagaal baa socday dowladdu dhinaceeda ka dagaalamayay inuu dhinaceeda ka dagaalamay 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo isku xigta oo aadan xabad maqlayn ma aysan jirin marka saxabad baad maqlaysay duulaysa marka dhibaatada ay waa dhibaatada marka jirtay magaaladuna waa burbursanayd African Unionki baayagana marka soo galay ciidamada Amazon oo iyagana marka taagooda dhinacooda ku soo waday waan u aabayeeleen meesha oo guriga ay ku jiraan al-shabaab oo guriga ay ka soo ridaan xabadba marinayay wixii ka soo baxayeen qalabkooda ay markaas kula dagaalamayeen al-shabaab oo ay dhulkoodana markaa dhulka la sii dhigay xitaa wixii gurihiisii dhisna image aad iyo aad u xun buu ahaa ama sawir aad iyo aad u liito runtii oo laga naxo qofka Soomaaliya uu dhihi doono uu xitaa is dhihi karo alla rajadii Soomaaliyeed way dhimatay ama way dhamaatay laakiin hadda waxaan soo joogay 2 bilood waan tagayna waxaana u egtahay aad iyo aad bay uga duwanaysay sanadkii la soo dhaafay hoteeladii baa la dhisay dariiqii baa la dhisay dowladii xafiisyada dowladaha wasaaradihii iyo wixii dhan baa shaqeynayay isbedel siyaasadeed baa jiray oo nin kasta wuxuu ololeynayay sida loo soo dooran lahaa doorashaha bomba ka dhalatay wadankii dadkii business baa jiray oo dadku way shaqaalay baa socday waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed intay aroortii soo kaxaan oo manjarafadiyo soo qaataan gaari gacan ka ururinay qashinka dariiqada Muqdisho oo mutadawacnimo oo Ilaahay dartii oo ay rabeen waxa uu qabtaan Muqdisho City Volunteers dhalinyaro la dhaho shaqada ay qabanay iyo dhalinyaro kala badan oo ayagana waday hawlo aad iyo aad muhiim marka dadka isbedel uu jiray noloshii dib u soo noqonaysay dhismayaashii dib baa loo dhisay aad iyo aad u qurux badan laakiin waxa kaliya oo anigana laga nixi karayo waxdana meesha ka jiro waxay dad oo deganaa guriyihii dawladda iyaguna oo dhahay guriyihii dawladda kama guurin waxa aad looga naxo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wadanay aniga guri dawladda degano ama qofka guri dawladda degano waxa laga wasuuso waana waxa aartina haystidna ogow aniguna wax ku leeyahay ogow adiga interviewga qaaday caawina wax ku leedahay ogow kana daawani dhamaantina wax ku leedihiin waana inaan u dul qaadan
dadka haysta guryihii dowladuna waxaan rajaynayaa in dowladdan cusub oo maanta timi inay dhihi doonto dadka guryihii dowladda haysto inuu laga qaadi doono guryaha ay degan yihiin ayna sida ugu dhaqsaha badna uga baxaan haddii ay beedmo sababta dowladdii ma dhismayso waddankiina hore ma soconaya haddaynaan innaga oo shacabka aynan garab qaban oo dowladdina markay saxan tahay aynan u sacabin oo aynan abaal marin markay khaldan tahayna aynan toosin oo aynan sixinayno wax u sheegin waa tahay mataan marka la dhaho qabyaalad iyo Soomaali waxaa soo baxaya sawir aad u adag amaba qaabka lagu tirtiri karaa inuu yahay hawl fara badan oo aan runtii si sahal lagu gaari karin qaab noocee baad uga wacyigelisaan bulshada Soomaaliyeed qabyaaladda sifooyinka aad u martaan maxaa kamid ah waxaan sameynaa magaalada aan tagnaba ama xaafada aan tagnaba oo adduunka tacaliis meesha doonta Soomaaliya deganaatay waxaanu kala hadalnaa dhibaatada qabyaalada ummadda Soomaaliyeed ku hayso iyo sida ay tahay oo aanu qabanno xaflado oo aanu qabanno seminars iyo workshops la isugu imaanayo oo dadka Soomaaliyeed looga wacyigelinayo dhibaatada qabyaalada ku hayso mawduucdan waxaa hogaamiye dadka Soomaaliyeedna u sheego dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaarkood ahaan jiray dad qabyaalada islayaasha inta qaarkood ku dhaqmi jiray qabyaalada qaarkood bixin jiray waxa la dhaho hagbadna maaha waxa laga ururiyo reeraha bishma qaaraan bixin jiray marka ay bisha dhamaato oo u diri jiray qaaraanka looma diri jirin marka tuuladoodii ama magaaladoodii dib loogu diri jiray looma diri jirin sababta waxa lagu dhisay hospital baa lagu dhisay ama school baa lagu dhisay ama ceel baa lagu qoday ama qof xanuunsan oo masaakiin ama agoon ama rajooyin ay wax lagu siinay waxa ay u diri jireen oo lacagta loo diri jiray in reerkooda qori loogu iibiyo ama reerkoodu ay dhul balaaris u sameeyaan dhulka qabsadaan oo ay sameeyaan wax la dhaho ku qabso ku qadimeyside runtii waxaad looga naxayay dhamaantoodna way ka tooba keeneen ogowna qol maanta hadda halka geni ama halka dollar ama halka kunka shilin aad ka dhiibatid qaaraankaas oo qori lagu iibiyo ama dhibaatada lagu gaarsiiyo waxaad ka mid tahay gacan ku dhiglayaasha gacan ku dhigle ayaad kamid tahay oo dadka wax gaarsiiyay maalinta yawmal qiyaamana waa lagu soo taagi doona waana dhalinyarada hadda kasoo waantaamay oo dhahay alle khalad baan ku jirnay dhibaataan ku jirnay waana kasoo noqonay wax fiican oo qabanayna waa hadda waxay lacagtoodii waxay ku soo wareejiyeen sida ay ula dagaalami lahaayeen qabyaaladda iyo sida ay u horumarin lahaayeen geyiga Soomaaliyeed haddii ay been waa tahay daawadayaal barnaamijkeenu halkaas ayuu inooga sii socon doonaa marka horese balaan wada daawano mid kamid ah khudbadihii xafladihii wacyigelinta ee ururka ATM uu qabtay bulshada ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya uu ka jeediyay gudoomiye Aadan Cabdullaahi Mataan daawasho haboon toddoba dhalinyaro anagu ayaanu waxaanu toddoba cisho ayaanu waxaanu noqonaynaa dadka laga tirada badan ama ay toorada timaado waa laga tirada badan ama dadka ay Soomaalidu yasto ayaanu waa noqonaynaa maqaaxiyaha markaanu ag fadhiisano ayaanu dhahnaa marka sheekada anaga ka soo bilaabayna ama gardarrada anaga hore ka bilaabayna markaas aan dhahnaa anagu marka sheekadu odayaashu iska bilaabaan sheekadoodii fadhi ku dirka ayaanu dhahnaa aniga meedina aqoon anigu waxaan nin heerebele waa dadka laga carro ka noogu fiicnaa oo ugu akhlaaqda badan ayaa wuxuu ninka mudarabka ku dhahaa maqaaxida ka shaqeynaya waraa qofka laba jeer iga dhaq waa ka noogu akhlaaqda fiican waa saasi gaarsiisan qaar waxay isku dayeen inay iska dhigaan dad fiican markaas in yar naga turkeen ama kursiga way naga yara jiiteen anigu nin Soomaali aan ahay adigu isku day bal inaad isgeysid dadkaasi dhibaatada ay maalin kasta arkaan waa qabyaalada dhibaatada noo keentay nin kamida dadka Soomaaliyeed ayaa tuulay isagoo jooga sheekada iga sheekeynta xitaa Nairobi joogay ayaa waxa qaniinay markuu qaniinay waxa iska lahaa ninka ay Soomaalidu dadka ay Soomaalidu yeesto markaas waxa la dhahay wardiiniin waxa la qabaa inuu qofku qaniino 7 jeer la dhaqo ama 7 jeer aad ka qubaysatid 7 jeer ka qubaysay markaas ninkii reerkii inuu ka dhashay waxa ku taliyeen inuu ninkaas uu qubaysto 14 jeer sababtoo waxa qaniinay ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay waa dhibaatada lagu hayo ummadda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ay qabyaalada ku hayso waa waxyaalo aad iyo aad looga naxo waa dawladeena hadda ama dawladda hadda inoo jirta ee hadda 4.5 ku dhisan ama ka jirto gobolada geyiga Soomaaliyeed ama ha ka jirto ama ha ahaato dawladeena TFG da maanta inoo joogta waxay ku dhisan tahay wax la dhaho 4.5 xitaa ragii waaweyn anigu hadda igama dhaadhacsano sida ay rag Soomaaliyeed oo isku falaya oo fakiray intay fariisteen ay ula yimaadeen wax la dhaho 4.5
4.5 aniga micnaheedu waxay ila tahay 4 qof oo dhammaystiran iyo qof aan dhammaystirnay ma qof weyn oo bini'aadan ayaa lagu dhihi karaa waxaa markaasaa weliba waxaa la rabaa inaynu caadil iyo horumar iyo shaqo dowladeed aynu ka sugno dowlad duudsiday xuquuqdii dadkeeda ama shacbigeeda waa aqoonyahanka soomaaliyeed ninka saa dhahay waa waxay haweenadeenu ka hadleen sida cabdishareeyo waa waxa ay ka hadleen hooyooyinkuna ay ka qayliyeen waa cadaalad darrada lagu hayo dadka soomaaliyeed markaa sidee maxaa inoo tala Soomaaliya waa aragnaa maxaa inoo tala ma iska taagnaanina Kenya iyo Ingiriiska iyo Uganda iyo Libya iyo meelaha ma iska balanbalayna hadii aynu oo halkaan ku dhamaanayna mise waxa inoo taala shaqo oo shaqo dhamaanteena wada sugaysa markaan aragnay dhibaatada ummadda Soomaaliyeed lagu hayo xitaa waxaad arkaysaa dad dan oo kule annagu waxaanu deganaan jirnay haddaan tuulooyinka qaarkood iska isticmaalo magac ahaan ma aha inay dhahaan magaalada laakiin qaarkood waxay dhahaan annagu waxaan deganaan jirnay Gurceel ama waxaan deganaan jirnay meel la dhaho buul xakabe ama buulo berde ama markacadee ama waxaan deganaan jirnay markacadee oo halkaas weligiiba arkay oo ku dhashay oo aan aqaanay laakiin hadda ma deganay waxaan deganay Hargeysa markaasaan dhana okay maxaa dhacay ugu soo gurtay magaaladiina aad taqaaneen iyo geyga ku dhalateen waa taqaaneen sida loo deganaashiisa taqaaneen markaasay dhahaan dee walaalo anagu waxaan nahay dadkii markaa waddanka laga xoog hadda xuquuqda masaakiintaas ee ilaahay ku gaadhay balinku waa dad Soomaaliyeed oo xaqoodii la duudsiyay aniga 9 bilood baan ku dhashay waana huwa ayagoo inay 9 bilood ku dhasheen hadday xitaa dhicis yihiin maaha bini'aadanimo lagu dayaso Soomaalida waxay dhahaan waxa ay niman Soomaaliyeed bari hore waxay cuneen midkood oo cunay waxay wada cuneen bakti markaas midna iska qaacay midna uu san iska qaacay markaa magac halkaas uu galay anigu hadii ay weydiin aan lagu dhiraa labada keebaa tala fiican waxaan dhiraa waxa tala fiican kii aan qaacay sababtoo wixii oo reer waabay galay aniga oo jirkaygu galay maxaan ka qaacay waa hadii aniga la weydiin lahaa marka haddaan leedahay kaasa dowladnimadaas iyo insaa loola dhaqmo waxa qofka u hogaamiyay sidaas ما قبيلته ما هنا ذاتك اللي قلت البداية هاي سطر قبيلته وين الصومالية ده هذا كنت تتقبل واتجيان كنت لما نقول خلاص الصومالية تكتب وحلا جاي بين الجدول عارف شو الجدول هذا وحلا جاي معنا وين عن هذه كريتورة ده مدرش صرت واحد يعني وانا كروان PhD هايستو ماستر هايستي كان كيسا كذا قاعدين ودل يا لو فكرية مركز عدد كيف فكرية هيلدل يا أمد الصومالية فكرية وده قبيلته كويسة يعني ذاتك الصومالية لكن سوى بحكرنا محانا عندك الموضوع محانا قوانينا ما كان مرني دبعتلاس أو صعود المايسترن يعني روحنا قوان سنة إن الله بحنا مقعد عدو كسور شيء كقبيلته أو وتكلم حقوق قف كست أو صومالية معها هنا وتكلم إن حقوق تلقى أي صومالي ده ولا كتير البديهة أما قبيلة ده إن أيدهم صومالي هو إن معها أنا بكلم معها والله عندنا معها أنا ما عندنا معها أنا هم تيني كده كيسودو ده لكن عندنا ما أقان تين هبل فان هاي مقالة أنا قاعدهم دلوقتي نفس ما يدري كذا حسنا مركز دبعتها تاس مركز عارمني إن سلا دبعتها سقبيات ومضى الصومالية دول هيسو إن وحنا نرمحان قبل كنا عدان هاي ومضى أما دان الصومالية صوبتوا عاب ما قولتوا ويلكيس أما هيركيس أما قبليكيس أقول لك تقعد حال ما هنا أنا بياشين أما والدين تيجوا رأي عن عادو ugu fogaanayno laakiin runtii marka laga hadlo aniga iyo inta ilaamida oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah dhaxal fiican aabayaasho looga tegin laga yaabay iyaga oo yaashooda dhaxal fiican uga tegin oo iyaguna xitaa ay dihiin dibanaha xaaladan lagu jiro ummadda Soomaaliyeed ku jirto sida iyadoo ah ayaa waxaanu go'aansanay inaan barnaamijyo badan qabano kuwaas aan qabanayno insha Allah u socono dalka Soomaaliyeed waxa kamid ah waxa la dhaho Somali Youth Parliament Soomaaliya ama baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu u doodi doonaa xuquuqda dhalinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogto aniga iyo kuwa la ilaamida iimadoodayo iimana madaxaygana kuma cunayo lacag oday lagu soo doortay reer hebel adiga iyo reer hebel ka wada jooga anaga dhalinta Soomaaliyeed baan wadaagnaa magaca Soomaaliyeed taasaan ku guda jirnaa hadda inaanu sameeyno taan Muqdisho ugu socono waa sida hadii ay beedmo تكلم عن مقابلنا واحد أقول هنا مسمينه مالين تلا مالين تلا يرى ومضى الصومالية مالين تاس أو مالين كسر لقى حد ليو topic لقى حد ليو أما دبعت له ومضى الصومالية هاي سنة أو مالين كسر اللي بدل ليو إن subject لقى حد ليو أما موضوع مالين تستعجل أو مضى كلام الصومالية زود بيسكريسي أما ضد الصومالية ولا
ما نبعين أبياشين ما نبعين وضياش الصوماليات لكن وحنا قبنا إنه وقت بدن أو وقت جودة يسوق عتين وحنا رجعنا إن دمانتين دولة حتى الأسبوع اللي يكون كسي حاجة إن شاء الله سميان وحكي عن كل هاي سميان ما هالصومالي يوم بعد ما تيجي وقت مو تاجنان دونا ما ها وقت الأسبوع دونا دولة حتى صوص وتكلم قريب دليل دونا لكن هديه بيد مركوكا قريب دليل دونا دولة كلا صوص وتهديه بيد ما عارف صنع مش صنع عادي هديه هاي نفتي نودا إلمنتين لكن ما هنكرنا موضوع الصومالية وهن كلاودنا برنامج شغله إسويدان سجل دنيا الصومالية وكاسو عن إسويدان إنه دنيا كنت مهرجيسة وممكن دون مقدشة وأنا ده إنه بريد مقدشة ده من كل البحثة كل كلام قصة ولد إنه شان ده دون ده بدأ من كله وقبل الصومالية وطن أنت برنامج كمان إن يا واحد مصممين إكسبيرمنت بكاسنا واحد كل رجويل دنيا أو يرير أو سجل جيران واحد صورتها تذكر مقدشة بيه waxay sawireen gaaban oo timo adag oo foolka maaha image-ka muqdisho maaha waana wax oo dadkeena ummadeena madaxa laga dhaadhicay markaas waxay kale inta qiimaan ku niri badan kuna waxa sawirtaa dadka reer Hargeysa weeyeen nin shaararku u furan yihiin oo qayirayo oo diinta caayay sawireen maaha sawirka saxda ah ee reer Hargeysa maaha sawirka saxda ah ee laga yaqaan oo geyiga Soomaaliyeed laga yaqaano maaha sawirka saxda ah ee reer Hargeysa mana aha sawirka saxda ah ee reer Muqdisho mana gobolada labada caasimadood waxaan u soo qaatay tusaale laakiin se dhamaan waxay ka jirtaa geyiga ummadda Soomaaliyeed oo dhamaantood iyaga dhibta wada haysato oo dhamaantood hadii lagu dhaw reer beledweyne sawira waxa laga yaabaa inay sawiraan cambayaal iyo wax meesha boodboodaya laakiin maaha inaysan reer beledweyne cambayaasha ku fiican baa laga yaabaa laakiin ay wax kale ku fiican yihiin oo ay ummadda Soomaaliyeed dhamaantood wada leedahay marka idinka dhamaantiin waxaan idin ka rabnaa maanta idin malihiin jeebkiina baarbaara oo waxna siiya taas idin kuma aanan iman maanta idin kuma aanan iman maanta maanta idin kuma aanan iman aan weydiino dhaqaale laakiin waxaanu idin ku nimi yar iyo weynba laba mid ta koowaad waa cilmigiin iyo aqoontiina iyo waxaadna dheertiin waxaa laga yaabaa hadda dad badan baa jooga oo aan ogahay inay naga aqoon badan yihiin awgeynayna dhaqanka naga badiyaan marka waxaan rabnaa inaan idinka barano aad aqoontiina balna siisaan iyo waxaad nagu soo kordhinaysaan oo aad nala talisaan haddaanu khaldanahay oo aad nasaxdaan markaanu khaldanahay tan kala maanta idinku midnimana waxa weeye xooggiina si ugu baahannahay waxaa laga yaabaa inaan dhahno waxaa laga yaabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaanteen aan isu ururino waan dhahno maanta waxaan u dabaaldegaynaa innaga Soomaalinimadeena uma dabaaldegayno reer hebel uma dabaaldegayno reerland uma dabaaldegayno state hebel midkoodna uma dabaaldegayno mana aha ummadda Soomaaliyeed waxaad aaminsan tahay siyaasadda aad aaminsan tahay adag ugu xidhan tahay haddaad aaminsan tahay inay Soomaaliya geyiga aad ka degantahay meesha ka degantahay dawlad gaar tahay ama aad aaminsan tahay state-kaagu inuu yahay meesha kaliya annagu siyaasadda aad aaminsan tahay taa uma socono laakiin waxaan u soconaa midnimada maskaxda hufan iyo qalbiga dhalinta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed marka iga raali ahaada waan ku dheeraaday hadalkee marka dhamaantiin waxaan idin ka rajaynaynaa maanta laga bilaabo inaad intaad marka iridda ka baxaysaan inaad dhamaantiin wadatiin xubno kamid ah kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda oo aad formiska buuxinaysaan haddii ay taasna idinku adag tahay dhamaantiin waxaan idin ka rabnaa inaad buuxisaan membershipska haddaad xubnaha aanu idinka rabno maxay noo siyaadinayaan ama maxaanu ka rabnaa barito marka aanu u tagno dawladdeena waxay nagu dhahayaan idinka dawladda wax annaga hadda ururkan kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda waxa ku jira 80,000 oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed 80,000 waxa laga yaabaa qaarkood inay yihiin hooyooyin qaarkood waalidiin inay yihiin qaarkood inay yihiin dad oo ummadda Soomaaliyeed dhexdooda laga ciseeyay oo dhamaantood oo waxa kamid ah hadda jira jaamac halkan la fadhiyay tacaawa markaanu barito u tagno dawladdeena ama dadkeena aan la gorgortano dhano hadda marka dawladdeena hadda meesha joogto waxaan dhaynaa war idinka idin soo doortay marka qaarkood baanu marka aanu siyaasiyiintan is aragno baydaan wareedha idinka hadalkiina abatay idinka xagee ka timaadeen yaa soo doortay markaasaan dhahnaa adiga reer iyo balaayo wax baad ku soo gashay anigu 80 baan bahaysay adiga yaa ku soo doortay marka waxaanu ka rabnaa xubnihiina aad noogu soo galaysaa inaan berri kula gorgortanaan dhahno anaaba kaa dad badane adigaagan dawladda u madaxda iyo idinkan keenee la qaatee marka wayna dhalinyarada Soomaaliyeed wayna gorgortaan ma aha
ما aha inaanu madaxnimo ku raadinayno ama aan rabnayna dawladda ku wadno ma aha fishinkaygu inaanu siyaasad nahay laakiin qabyaaladda siyaasad bay gashay oo dawladda dhameyd baa waxay ku fadhidaa qabyaalad ku fadhida marka waxaan rabnaa inaan qabyaaladda ka saarno siyaasadda iyo meel kasta oo ay ka gasho ummadda Soomaaliya aad iyo aad baan u mahadsantahay si fiican aad nooga soo qayb gasheen aad noo dhageysateen waqtigiina noo siiseen insha Allah waxaan rajaynayaa wadankeena iyo nabada inaan ku noqono hadda waxaan ku soconaa Muqdisho ayaan u baxaynaa berrito subaxdii hadii ay beedno markaas waxay nagu weerariyeen waa la idin dilaya ama waa la idin qabsanaya ninka idilaya waa wax laga naxo inaan ka dhuumano ama aan ka baqno nin Soomaaliya waa wax aad iyo aad looga naxo haddaan nin cad ka bixi lahaa ama nin madow Afrikaanka wadankeena jooga haddaan ka bixi lahaa wax dhanbe ahaan lahayn laakiin maanta maxaan la ka ilaalinayaa nin aan wax ka soo wadaagno oo Soomaaliya waana wax aad iyo aad looga naxo runtii waana wax aad iyo aad looga naxo laakiin waxa bedeli kara waa tahay aadan waxay la tahay in khudbadaasi ay ugu filan tahay dhagahooda waxtar fara badan dadweynihii ka soo qayb galay xafladan iyo inta caawa ina daawanaysaba ayna ka soo waantoobi doonaan qabyaaladda iyo dhibaatooyinka ay leedahay waxa igu maqalaa inaad wadaan muddooyinka dambe baarlamaan ay yeelanayso dhalinyarada Soomaaliyeed muxuu noqon doonaa baarlamaankaasi insha Allah baarlamaanka waanu wadnaa waa mowduuc aan rabnaa inaan bilowno hadii ay beedmo hadda wuxuuna bilaabmi doonaa bilaha soo socda hadii ay beedmo wuxuuna ka dhici doonaa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho wuxuu yahay baarlamaankaasi ma aha inuu dawladdan hadda maanta jirto mucaarad ku noqdo ma aha inuu dawladdan wax dhibaato u geysto baarlamaanka Soomaaliyeed maanta la soo dhisay shaqadiisu waxa weeye inay taageeraan dad baarlamaanka hadda jiray dawladda hadda jirta waxayna tahay inay ka hadlaan oo ay ka wada shaqeeyaan dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay face garayso ama ay markasta la kulanto oo geyga Soomaaliyeed meel kasta ha ahaatee taas oo ay u sii gudbi doonaan baarlamaanka oo ka sameyn doona sharciyo siyaasado iyo waliba horumarin oo sidii loo horumarin lahaa mowduucyada iyo waxyaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo jeediyeen ujeedadiisu waa taas dhalinyarada ka soo qayb galaysana waxa laga soo dooran doonaa hadii ay beedmo 18 gobol ee Soomaaliya ahaan jirtay markii inuu ku dambeysay inuu dawlad ahayn 18 gobol Hargeysa Muqdisho way ka badnaan doonaan hadii ay beedmo siyaasad lukuma laha waa dhalinyaro inta isku timi dhaxaysa anigu waxaan deganahay Hargeysa ama waxaan deganahay Boorami ama waxaan deganahay Gado ama waxaan deganahay Beledweyne ama waxaan deganahay Marka ama waxaan deganahay Baydhabo dhibaatooyinka aanu nahaysta anagu haddaan nahay reer Baydhabo ama reer Beledweyne waa biyo la'aan ama waa ama waxay doontaba ha ahaatee ama waa qashinka aan la ka aruurin ama waa saas oo jirta waxa ay dhalinyaradaas ka wada hadlaanayaan waxaan insha Allah u gudbi doonaa dadka stakeholders ama dadka oo wax ka qaban kara gobolkaas ama dawladda Soomaaliyeed ha ahaato ama hay'adaha international ka ahaato ama kuwa local ka ha ahaato ama cid kasta oo danaynaysa ha ahaatee hadii ay beedmo dhalinyaradana looma soo doonan sidii 4.5 waxaa loo soo dooran doonaa gobollo gobol kasta laba dhalinyaro ah ka soo baxaysa oo labadaas dhalinyarada oo u ololeyn lahaa si loo soo dooran lahaa dadka Soomaaliyeedna aroortiintay dareeraan oo ay u dareeraan footin ay u soo foodgareynayaan gabadha ama wiilka ay isleeyihiin alle way ka hadli kartaa dhibaatooyinka haysta gobolka taasoo saas loogu soo codeyn doona hadii ay beedmo marka waxaan rabnaa inaan tusno alternative dadka Soomaaliyeed ama wax ka duwan sida ay hore la isugu soo dooran jiray oo wadanka Soomaaliyeed si uusan ahayn nabad maaha oo dhibaato ka jirta laakiin waa la soo dooran karaa qof dhalinyaro waana qofkan Soomaaliga waa lagu soo dooran karaa aqoontiisa iyo tayadiisa iyo wuxuu ku soo kordhin karo ummadda Soomaaliyeed taana waa dhisi doona hadii ay beedmo programyadan wadno waan rabnaa inaan ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed heno in badan baynu ka fakaraynay dagaal iyo layna isticmaalay bal hadda aynu ka fakarno future-keena aanu dhahno maxaynu qabsan karnaa hadaan Soomaaliyeed maxayna tahay waxyaalaha ugu badan oo ina haysta maanta caqabadaha inay hortaagan aynu gudbin doonaa baarlamaankeena hadii ay beedmo taasna way dhici doontaa insha Allah TV-dan waa laga arki doonaa marka programku uu dhici doono hadii ay beedmo sidaynu ogsoonahay dastuurka cusub ee dalku waxa uu dhigayaa in qof ka yar 25 sano aanu maslaxyada siyaasadda ka soo dhex muuqan karayn rajaynta la eeg baad ka qabtaa in baarlamaankaasi tayada uu yeelan doono iyo go'aamada uu soo jeediyo sida baarlamaanka dadka waaweyn ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu ugu dhagan doono ee u qaadan doono insha Allah waxaan rajaynayaa inay noo dhagan doonaan nagana qaadan doonaan go'aamada aan la soo baxno hadii ay beedmo hadday taan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu qorayaa sharciga ama constitution wuxuu qorayaa in qofka dhalinyarada baarlamaanka qayb geli doono 25 uusan ka yarayn laga yaabee inay macquul tahay oo wax jira tahay oo qofka dhalinyarada ama ay Soomaalidu ku maamaado dhalinyaronimada wax badan bay ku jeeseen ku dhaafisa ama fudeedka dhalinyaronimada ama qalqaalnimada dhalinyarada wax badan bay ku dhaafisa marka laga yaabee inuu aqoon iyo
waay aragnimo u baahan yahay qofka dhalinyarada oo 25 ka yar laakiin haddana taa micnaheedu maaha qofka soo dhalinyaro 25 ka yar aqoon-yahan maaha qof fududna maaha waana qof fududna maaha caqlina ma laha ma taas micnaheedu maaha qofka dhalinyarada wax kasta oo aabuhu gaari karo go'aan ama fikrada ama wanaag ayuu keeni karaa kadaranta wuxuu keeni karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay feel gareeyaan ama dareenkooda waxa kaliya oo dareemi kara wiil dhalinyaro ah oo sidoo kale oo waxa ay maalin kasta sheekaystaan waxyaalaha kalena ay waxyaalaha ka dooda waxaanu rajayn doonaa dawladdan oo hogaamin doono Xasan Sheekh waxaan rajayn doonaa inay soo magacaabi doonaan gabadh ama wiil dhalinyaro ah oo noqon doono wasiirka dhalinyarada iyo sportska waan rajaynaa hadii ay baydmo waxaan leenahay naga qaata dada wadaan inaad ka dhigtaan wiil dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro baarlamaanka hadda ninka ugu yar waa 36 jir markaas anaga haddaan runtii dhalinyaro haddaan nahay waxaan feel garaynaa ama waxaan dareemaynaa inuu xuquuqdeeda meesha ka maqan tahay inuu fakarkayga meesha ka maqan yahay laakiin haddana micnaheedu taa hadda maanta dadkeena waxaa lagu soo doortay systemka lagu soo doortay dhammaantood markaanu baarlamaanka weydiino ama aqoon-yahanka ama siyaasiyiinta markaanu weydiino waxay dhahan xaq maaha laakiin waa xalka maanta la arki karo waan ku raacsanahay sababtaa waddankeena burbursanaa laakiin waxaan leenahay balana waxaanu soo jeedinay fakarkayga balna dhagaysta iyo waxaanu soo kordhin karno laga yaabo waxyaalo badan oo aabayaashayo ama waalidiintii ka maqan inaan soo kordhin karno haddii ay beedno waxaanu rajayn doonaa inaan dhageysan doonaan in systemkan la bedeli doono 4 sano ka bacdi oo qofku hadduu ka wan yahay 30 uu soo istaagi karo madaxweynaha because sababtoo hadda 40 hadaad ka tahay madaxweynaha ma noqon kartid laakiin waxaanu aaminsanahay waddankeena aad iyo aad u dhibaato waxa bedeli karnaa dhalinyaro maaha inuu runtii ahaado da'diisu yaraato laakiin nin fakir fiyo wata ayaa bedeli karaa waxaan rajaynaynaa madaxweynaha cusub iyo dawladda cusub inay noqon doonto fakirka fiyo matan baarlamaanka hadda la sameynayay dawladdan rasmiga ah ee dhawaan la doortay waxaa jirtay qoondo loo qoondeeyay haweenka oo ahayd 30% hadda waxaad ka dhawaajisay inaad wadaan qorshe kale oo aad sameynaysaan youth baarlamaanti ama baarlamaan dhalinyaro ma la dhihi karayaa qorshahani waxa uu ka qayb noqonaya isbarbaryaacay siyaasadda Soomaalida amaba caqabad kale oo soo korodhay oo dhalinyaradii sida haweenka barihii dhaweyd qayladii ka baxaysay oo kale ah ayuu buu soo kordhin karaya umaleyn maayo rutiinay soo kordhin karto anagu wax kasto anagu dawladdeena taageersanahay dawladdeena ka dambeynaa oo iyadaana xukunta iyadaana dawladdeedii laakiin waxa kaliya aanu ku soo kordhinay waxay tahay aabayaalow adeerayaalow baarlamaankayagiyo siyaasiyiinteedinayo aqoon-yahanadayadiyo annagu haddaan dhalinyaro Soomaaliyeed nahay bal waxaan noola muuqdo inay sax yihiin ama sidan aan u aragnaa inay wax laga bedeli karo waxyaalaha caqabadaha iyo dhibaatooyinka maalin kasta noo hortaagan maxay ra'yi ahaan idin la tahay hadday naga wanaagsan tahay naga qaata oo sharciga ka qaybgeliya haddaysan habboonayna tii nagu diida waxaad noogu diidayna waxay tahay idinka aabayaasha idinkaan laga yaabo waxyaalo badan anaga naga hoos maqnaa ama aanan arki karin inaad idinku aragtaan ama caqli fiyowna sukurin waxa laga yaabaa inaanu keeno idea ama caqli ama mashruuc inaanu keeno oo ay dhahaan wuu fiican yahay laakiin xaggan iyo xaggan aan ka bedelaynaa waan toosinayna oo annaga naga maqnay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka u malayn inay caqabad ku noqon doonto 30% ama 30% dumarkuna caqabad kuma noqon waa horumar baarlamaanka waa horumar ay ummadda Soomaaliyeed gaadhay waxaan rajaynaynay oo dhamaantay aan u dagaalamayna inay 30kaasi ay 30kaba laga dhabeeyo ay 30kuba dumarku ay yimaadaan laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin hadda adduunka wadamo badan adduunka jiraan ku horeynaa markay intimaado xagga equality-ga iyo dumar iyo genderka baarlamaanka markay noqoto insha Allah waynu gaari doonaa waxaan rajayn doonaa 4 sano ka bacdi inay dadka Soomaaliyeed ay dooran doonaan qofka ay isleeyihiin allaleeyahay fiican maaha inay noqoto dumar ama nin xitaa waxaa laga yaabaa Soomaalidu waxay dhahdaan dumarku ma qaban karaan baa la dhahay madaxweynaha laakiin hadday soo baxdo gabadha waddanka badbaadin karto ra'iisul wasaare noqon karta waxaan qabaa in ummadda Soomaaliyeed ay 4 sano ay codkooda u noqon doono ama ay ugu codeyn doonaan ayaa waddanka badbaadin kara ayaa waddankan horumar gaarsiin kara laakiin aysan ugu codeynin waa reer hebel gobol hebel bay kasoo jeedaa waa civil society waa engineering bay soo baratay marka engineering bay wax ka qaban kartaa inaysan taas noqon baan rajayn doonaa haddii ay beedno ama wax ka qaban karaa waa tahay marka laga tago youth baarlamaantiga waa maxay qorshayaasha kale ee waqtiga dhow aad qorsheynaysaan ururkan ATM inay wax ka qabtaan amaba ay dardargeliyaan oo ay fuliyaan waxyaalo badan baan ku tala jirnaa inaan qabano insha Allah oo ay ka mid yihiin wacyigelintii iyo baraarujintii ummadda Soomaaliyeed iyo tiiraangelintii ummadda Soomaaliyeed iyo iscafiska ummadda Soomaaliyeed si soo cafin lahayn haddii ay beedmo
oo aanu ka wadi doono gobolada Soomaaliyeed oo dhan gobolada 18 gobol degmooyinka tuulooyinka xitaa haddii abeedna waxaan rabnaa inaan miyiga xitaa dhex marno oo aan ummadda Soomaaliyeed waxaan ayna gaadhay bal ka warma sayid la muuqata maxaan mana bedeli karnaa sidaan wax u aragno iyo fikirkeena oo ma iscafin karnaa oo ma orientation centerkii oo ay dawladda siyaad barre wadi jirtay oo kale aan sameeyno haddii abeedna dadka Soomaaliyeed meel loogu ay isku cafiyaan ku sheekaystaan ay tiiraanyadooda ku wada wadaagaan baan sameyn doonaa haddii abeedna taasna waa mawduuc soo socda baarlamaanka dhalinyarada golaha baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed oo isaguna soo socda haddii abeedna iyo waliba dhalinyarada Soomaaliyeed rabnaa inaan u furno trainino oo dhahno yaa hogaamiyihii noqon karaa 10 sano ka bacdi maxaa hogaamiye lagu noqdaa maxaa wasiirka ganacsiga lagu noqdaa maxaa lagu noqdaa wasiirka arrimaha dibadda maxaa lagu noqdaa wasiirka gaashaandhigga maxaa laga baahan yahay aqoonteedu maxay tahay maxaa lagu noqdaa safiirka wadan hebel u fadhiisan kara wadankeena waan rabnaa 10 sano soo socda siyaasadda Soomaaliyeed hogaanka Soomaaliyeed noqon lahayd aan rabno maanta inaan ka bilowno tababarkoodii iyo diyaarintooda haddii abeedma kuwaas oo ka fiyo qabyaalad iyo xasad iyo ideologies kale intaba ka dheer oo ummadda Soomaaliyeed badbaadin kara haddii abeedma waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena maxaad ugu baaqaysaa dhammaanba bulshada Soomaaliyeed dhalinyaro waayeel ee ku daawanaysa caawa ummadda Soomaaliyeed ee caawana daawanaysa waxaan ugu baaqi lahaa Soomaaliyeedna qabyaalada ka dheeraan waan ognahay inay tahay dilaaga fadhiya maskaxdeena iyo qalbigeena waxaanu u baahanahay inaan labada meeloodba ka tirtirno qabyaaladaas sidii aynu horumar u gaari lahayn waana aragtaan dhibaatada ay gaarsiisay Soomaaliyeed hadaa rabtid sidii looga bixi lahaa qabyaaladan aynu diinteena iyo kitaabkeena Quraanka u laabano aynu ku laabano wuxuu ina baray nabigeena suubana alayhi salaam Muhammad aynu u laabano dadnimada bini'aadanimada horumarinta aynu aragno waxa ay sameeyeen dalalka ama wadamada ama dadyowga inagoo kala ah oo in xitaa aan ahayn caqiidadeena ayna la wadaagin oo dad muslim nahay dad Soomaaliyeed nahay luqadda aynu wadaagno dalka aynu wadaagno diinta aynu wadaagno haddana aynan is arki karin waxa aad iyo looga naxo waxyaalaha leena dhex dhigay oo waxyaalo dad khaldana oo fikir khaldan watay oo rabay inay gaaraan waxyaalaha iyaga u gaar ah ayna dhex dhigeen marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed bal aynu fikirno haddana bal caawa aynu yara fikirno aynu dhehno maxaynu qaban karnaa hadaa rabtid inaad wax ka bedeshid fikirkaaga qabyaaladda iyo hadaa rabtid inaad qabyaaladda iska daysid fadlan booqo website-kayga hoos ku qoran oo kaasad ka heli kartaa wax kasta xubinna ka noqo kacdoonka la dagaalanka qabyaaladda taas oo micnaheedu tahay inaad ka dheeraanaysa qabyaaladda kuma kaftami doontid dad ma yeesi doontid qof kuma dili doontid qof guurguma diidi kartid qofna xuquuqdooda uguma diidi kartid haddii abeed haddaad ka mid noqotid qabyaaladda waxaad noqonaysaa qof caadil ah oo dadka bini'aadanka oo dhan dadka Soomaaliyeed oo dhan hal il ku eegay aan laba ilood oo kala nooc ku eegin haddii abeed waa tahay guud ahaanbana daawadayaal intaasi ayaan kusoo barnaamijka codka dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinka soo tabinaynay xarunta labaad ee TV-ga Soomaali Saad uu ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka toddobaadkan waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdiraxmaan Cumar Cabdiraxmaan Soomaali waxaanan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ururka kacdoonka la dagaalanka qabyaaladda ee magaciisa loo soo gaabiyo Anti-Tribalism Movement ATM Aadan Cabdullaahi Mataan oo barnaamijka toddobaadkan igala qayb qaadanayay tan iyo intii barnaamijkan la dib ugu kulmi doonana waxaan idin leenahay tayaba isarag dambe ee xiiso leh aad baad mahadsantahay